doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Norway gaar ahaan magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ayaa waxaa ku soo baxay markii ugu horeysay taariikhda dalkan laba ka mid ah musharaxiin ka soo jeeda Soomaaliya arrintan oo aad u soo jeedata Soomaalida degan waddanka Norway haddaba warbaahinta wacdaraha nolosha xarunteeda magaalada Bergen ayaa mikrafoon kala dhex qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada haddii aan ku bilowno culimada magaalada Bergen Imaam Cabdiladiif Cabdullaahi Axmed ayaa wax ka weydiinay sida uu u arko doorashada iyo ahmiyadda ka Soomaali ahaan Bergen si guud waxaan uga mahad celiyo horta codeyntii ay codeeyeen haddaan codeynta la sameeynin heerkan lama gaadheen in la codeeyay oo dad badan ay ruuxantii ka qayb qaateen kuna sii dhiirigelinayo mararka soo socda iyo doorashooyinka soo socda in dadku codkooga ay bixiyaan oo aynan guryaha la jiifsan arrintaas waxay keentay laba arrimood kow arrinta koowaad oo ah inaan xaqiijino bulshada inaan ka qayb qaadano qayb ka mid ah noqono Bergen oo deganahay 2000 iyo ku dhawaad baanu nahay dadka Bergen iyo Kamuneega meelahaas degan inaynu qayb ka noqonay bulshadan oo aan golihii deegaanka looga talinayay cala aqal meelay go'aanka laga gaadhay ay qaar inaga mid joogaan oo si gaar ah ugu hambalyeeynayo Cabdullaahi iyo Aamina aadna way fiicneed run ahaantii wiil iyo gabadh inooga soo baxay oo laba family ah si gaar ah waxaan u sii hambalyeynay akhuna Cabdullaahi oo muddo dheer soo wada shaqeynay aad iyo aad baan run ahaantii isaga u mahad celinayaa Aaminana sidoo kale waxay ahayd familiyadii jaarkan u laahin halkan magaalada waxaan u maleynayaa dadkii ugu soo horeeyay family ahaan ay ka mid ahaayeen Soomaalida si guud Bergen kulli waa 90 bay soo gashay inaad ogsoon tihiin dadkii labadii kuna dadkii ugu badnaa baa soo galay marka record baynu dhignay taariikh baynu dhignay haddaan kol horta bal golihii deegaanka galay inta kalena iska iman doontaa inta waan ugu mahad celinayaa ugu hambalyeeynayaa Cabdullaahi Aamin oo ku guuleystay xubnaha golaha deegaanka taasi dhiirigelin waxay u tahay ciyaaladeena halkan ku dhalanaya waxay kale shar bay naga joojin karaa iyo dhibaatooyin inoo maleegayo meelaha hadii la joogo cala aqal bal cid codkeeni dadka maqashiisa bulshooyinka kala way jiraan dad in badan hore soo galay laakiin Soomaalidu waxaan islaahay sanadkan guul aad weyn baan ka gaarnay wadanka oo dhan meel kala gedisan oo ka soo galeen Soomaalidu baa jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku asturo xilkaasi waa mas'uuliyad iyo dadka in loo adeegay in kuwii dadka u adeegay Ilaahay ka dhigo arrinta marka laga yimaado waxaan islaahay malaha mustaqbalkana hadii la sii qorsheeyo oo laga baaraandego oo dadku qorshe ku galaan waxa si badan kara xubnaha xataa la soo saari karo iyadoo taana ay ka sii horeyso wadankan siyaasado iyo xisbiyo xukuma in qorshayaasha laga duulayo laga sii wada hadlo oo la sii bisleeyo oo hawlo dhameystiran xisbiyada laga dhaadhicin karo baahiyaha gaarka ee leenahay dhibaatooyinka ugu badan inaga dadkeena aadka looga qayliyo waxa kamid ah guri la'aanta arrinta faqriga arrimahaasi waxaan islaahay waxay keeni karaan dhibaatooyin si fara badan haddaan xal degdeg loo helin bal in loo raadiyo dadkan qaab ay ku noolaan karaan wadankeena imika wax u noqonaya imika ma jooge in arrinta laga shaqeeyo aad bay muhiim u tahay si guudna wadanka waxaan u maleyn baarlamaankana markii ugu horeysay gabar Soomaaliyeed ay si ku gashay ku meel gaar u gashay hay'ad inkastoo xubin rasmi ahayn oo qofkii meesha ka baxay ay yar bedeshay insha Allah waxaan rajaynayaa barina inay ka noqon karaan wasiiro maadaama 40 kun in ka badan kontomeeyay Soomaalida la sheegayo wadankana waxa ka socota si guud siyaasado beegsanaya Soomaalida arrinta waxa looga bixi karaa in meel kasto qofka Soomaaligu joogo kaliya ayna shaqeyneen jufadu ayna shaqeyneen Soomaalina istaageersata ay laga maarmaan tahay hadii la ururiyo dadkaas oo la isku soo dhaweeyo ay muhiim tahay mar inaynu ciyaarno kaarka muslimiintan islaamka kala mid nahay ajnabinimadan kala mid nahay wada shaqeynaan la sameyn karno isla waqtigaana aan ka ciyaari karno kaalin hogaaneed waxaan islaahay arrintaas aad bay muhiim u tahay taasi waxay daliil u tahay Cabdullaahi codadkiisii waxaan maleynayaa codadka badan uu helay qofka saddexaad uu ahaa ee ugu cod badan Bergen golaha deegaanka muslimka badan uu garanayay baa qayb weyn kulay ka qaadatay waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu xilka ku wada asturo dhamaantood adigana bilowan kaaga mahad celinaya su'aashaadii weydiisay aad baan ugu faraxsanahay intaan kulay joogay hamiga Soomaalida ma yara Sheekh Xuseen Xirsi
oo dhankiisa ka mid ah culummada ayaa waxa uu ku talinayaa in Soomaalidu u istaagaan inay xitaa ka soo muuqdaan golaha sare ee baarlamaanka iyo meelo ka sii sareysa iyo Soomaalida degan magaalada Bergen oo isku duubantay iyo horumarka ay gaareen oo ah inay helaan laba qof oo musharax ah oo soo gala golaha deegaanka una dooda xuquuqdooda waa guul weyn ay gaareen dadka degan magaalada Bergen taasoo ah mid lagu farxo haddii marka arrintaasi ay sii socoto dadka Bergen degan ay sii saas wadajirkooda iyo iskaashigooda ay sii wadaan waxaa dhici karta markaas inay gaaraan meesha ay taagan yihiin ka sii sareysa oo guul ah marka waxaan leeyahay bulshada degan Bergen oo ku baraarujinaya in ay horumarka ay gaareen iyo sida wanaagsan ay u doorteen walaalahood gabadha iyo wiilka soo baxay oo noqday golaha deegaanka ay saas oo kale u taageeraan walaalahood ayna soo galaan golaha deegaanka iyo meelaha kaleeto laga yaabay markaa inaan gaarno guul taa ka sareyso oo ah inaan galno baarlamaanka iyo meel ka sii sareyso annagoo doonayna meel ka sii xageyso halka hadda ay marayaan deegaan inaan ka sii koro marno oo hore u soconno marka waxaan albaabkan u furmay reer Bergen ayaa ah mid markii ugu horeysay Soomaali ka soo muuqdaan golaha deegaanka Aadan Xasan Cawaale ayaa isagana ka mid ah dadka deegaanka ayaa qaba fikirkan yahay garabkiina Allah galo bulshadiina way idin codeysay si sharaf leh wanaag ku jiro waxaan idinka rajaynaynaa idinka oo kaashanayo xisbigiina in wax la taaban karo oo muuqda bulshadiina u qabatiin waxaana farxad gooniya noo ah in aad ka warqabtaan bulshadiina baahiyahooda gaarka ah waxaa kaloo mataqaanaa aad loogu farxo ah in aad joogtaan miiska go'aanka ugu dambeeyo ee magaaladan Bergen ee ah caasimadda labaad ee Norway go'aanka lagu gaarayo inaad miiska fadhisaan waa waxa mataqaanaa aad noo farxad gelinayo bulshada kale qaybaheeda kala duwan mataqaanaa ajaanibta u badan ee idin soo doortay ayagana sidaas iyo si lamid ah ay idinka sugayaan waxaan kamid ahay waalidiinta ku nool caasimadda labaad ee Bergen caruurtayna mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa inay idinku daydaan waxa aad furteen albaab warbaahinta wacdaraha nolosha oo tixgelinaysa ayaa wareysi la yeelatay labada xildhibaan ee Soomaalida ugu soo baxay doorashooyinkii 9 September ee sanadkan ka dhacay dalka Norway xildhibaanad Aamina Amiin oo ku soo baxday mid ka mid ah kuraasta golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan AP ayaan ka wareysanay markii aad ogaatay in aad ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka xisbiga shaqaalaha ee aad adigu u tartantay farxad aad u weyn ay ii gelisay maxay ahayd waxa waaye arrin aad loogu farxa maxay ahayd arrin waxa waaye ku jirta hol badan dagaal badan markaan la ii sheegay inta ku guuleystay aadan ugu farxay Aamina waa maxay sababta kugu kaliftay in aad ku biirto siyaasadda Norway oo aan ognahay in ay tahay mid tartankeedu uu adag yahay marka loo eego wadamada kale ee Yurub goorma ayaysa kugu dhalatay sideedaba ani waxaan ahaa qof ila markuu yaraa ku mashquulsan bulshada bini'aadanka ibadkii waxaan jeclaan jiray bini'aadanku kulli inta isku xaq helaan la wada simo isku fursad ay helaan markaan ma ahayn wax oo aan ku fikiray inta siyaasi noqdo mise aan siyaasadda ku biiro arinta taas may ku bilaawan arintu waxay ku bilaawatay inta bulshada ku mashquulsanaado markaan bulshada mashquulkeedana waxay ii sii geysay inta aan dhinaca siyaasadda aan ku biiro guushaada waxay noqotay mid bog cusub u furtay Soomaalida Bergen iyo nawaaxigeeda yaad is leedahay waa taga mahad celinaysaa guusha aad gaartay guusha aan gaaray waxaan kaga mahad celinayaa ummadda dhan oo Bergen degan waxaa ummadda Bergen degan ayaa cod siisay markaan ayakan u mahad celinayaa golaha deegaanka Bergen oo aad dhawaan ka mid noqotay maxaad is leedahay waa loogu baahi badan yahay xilligan oo aad ku soo kordhin lahayd waxa waaye sidaan ognahay arrimo badan jira Bergen iyo adduunka markaan adaan dhinaca Bergen aan ka fikiro waxay tahay dhinaca oo hawada ah saan u ognahay adduunka hawada ayaa ka xumaanaysa kuleelka ku badanaya
markaan waxaan rabaa dhinaca hawada intii lagu dagaalo hadday noqoto intii basaska la badiyo hadday noqoto intii oo caruurta iskoolada caruurta waxbarashada intii aada loo xoojiyo xisbigeena waxaa ballan qaaday caruurta intii la siiya cunto kulul lagu siiyo iskoolka sababta wadanka Norway waxay ka mid tahay wadankii saddexaad oo Yurub dhan aan ilmaha siinaynin cunto kulul waqtiga iskoolka markaan arintaas waxaan rabaa intaan fuliyo waxaa kaloo aan rabaa inta aan fulina intii ay caruurta kulli oo dhigata galaaska koowaad ilaa afraad intii la siiyo wax la dhahaa asifu iskoolka markay dhammaan meel lagu hayo oo kulligood ay fursad u helaan intay aadaan oo lacagta laga joojiyo oo la bixinayo waxaa tahay aamina gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee ku soo baxda kursiga golaha deegaanka gaar ahaan xisbiga shaqaalaha oo aad ka mid tahay magaalada waxaa ku nool haween fara badan maxaad ugu baaqi lahayd haweenkaas damaca ugu jiro inay ku biiraan siyaasadda dalka Norway meesha muhiimaddu waxa waaye in sheegan qofka bini'aadamka intuu kalsooni isku leeyahay wuxuu jecel yahayna uu sameeyo aniga gaar ahaan ibidkayba waxaan jeclaan jiray bulshada si wada shaqeynayaan dhinaca waxbarashada xataa waxaan bartay bulshada marka hadduu qofka uu bulshada u jecel yahay waxyaalo badnaa sameyn karta aad kusoo biirin kartid waxa waaye kalsoonidaas intaad haysatid aad waxaad jeceshahay aad u shaqaysatid aad u mahadsantahay aamina hadaan mudan sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Cilmi Ibraahim ayaa dhankiisa ku soo baxay kuraasta golaha deegaanka magaalada Bergen ee isla xisbiga shaqaalaha Cabdullaahi markii aad ogaatay in aad ku soo baxday kuraasta dawladda hoose dareenkaaga sidee ayuu noqday بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا الأدب ما سنت بله سيد عادي مركي آد حول أدوك عديد مركز طبعا جعشة إنها تقول لي ستة مركز درنكي آد بو وناكسنا رنهانت وان آد بنا وفرحي عليسنا وان دريم صوتو إن مسؤوليات أضغط آد بي علوس هاي هذا الأساس تاي وان كون فرحي أو إن معنيها آد قريب كنقطة سياسة دي يومارتي جوينت جان جوينت تيدا آد بنا وفرح رنهانتي ilaa intee ayaad ku taamaysay kasoo muuqashada doorasho ka dhacda dalka Norway adiga hadda sanadkii la soo dhaafay socotay laakiin siyaasadda adiga muddo 3 sano camal ayaan hadda ku jiray ujeedkan u galna waxay u ahayd inaan maaragtay markaan arkay dhibaatooyin badan oo u baahan in wax laga qabto ayaan goostay inaan macnaheeyo aan siyaasadda qaabeynteeda iyo go'aanada qayb ku yeesho marka adiga muddadii hadda ugu dambeysay 3 sano ugu dambeysay qayb baan ka ahaa doortay ma yahay mid aad awood muuqata kaga heli karto golaha deegaanka walaal qaabka uu shaqeeyo systemka ama maaragtay siyaasadda waddanka waxay tahay team ayaa leeyahay teamkaasna waxay noqonaysaa wada shaqeyn ayaa jirto wada shaqeyntaasna waxaad marna maaragtay cases badan ayaad ku guuleysanaysaa marka qaarna waad ku guuldareysanaysaa marka sida caadigaan ah waxaan rajaynayaa insha Allah inaan waxyaabo badan aan isku dayo inaan ku guuleysto marka waxaan isleeyahay haddii siyaasadda saytaan aan u qaadno wax badan ayaan ka gaari karnaa oo maaragtay go'aano badan ayaan ku qaadan doonaa insha Allah laakiin waa siyaasadda inta badan ma jirto cid awood buuxda ay wax ku muuqan karta oo maaragtay kaligeed wax maamuli karta marka waxay noqonaysaa in xisbiga dhexdiisa iyo xisbiyada kaleba inaad macnaheeyo la yeelato xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn iyo maaragtay grassroots building aad samaysid hoos aad ka soo dhistid marka waxaan isleeyahay haddii aan islahayn maaragtay waad ku guuleysan kartaa ama galeenba marka waxaan aaminsanahay waxyaabo badan ayaan ka qaban karnaa insha Allah haddii aan dhinaca su'aalaha aan sii wado ustaad Cabdullaahi ma xiriir yaraantaada ayaa jira oo siyaasadda aad ku lug leedahay tusaale qof aad kaga dayatay xil qabashada aniga run ahaantii siyaasadda weliga waan jeclaa laakiin markii aan u go'aanka aan ku qaatay inaan siyaasi aan noqdo oo aan maaragtay hawshan aan toos u galo waxay ahayd adiga muddo 3 sano laga joogo way jiraan marka dadyaabo badan oo ku daysado isleeyahay way jiraan haddii ahaan lahayd maaragtay waddanka guud ahaan gaar ahaan magaalada waxaa jiro dad aan isleeyahay maaragtay waxyaabo badan aad ka wada qaban kartiin marka generally waa jacayl aniga aan u qabay iyo maaragtay baahi aan arkayo in ay jirto oo aan u baahanahay inaan wax ka qabto marka labadaba isugu jiraan laakiin inta badan waxa ay riixay waxay ahaayeen baahida aan ii muuqata oo aan doonayo inta aan gadaal aan ka joogi lahaa in aan galon isku dayo inaan saameyn ku yeesho taas ayaa maaragtay igu badneed oo i riixaysay
ugu dambeyn ustaad cabdulaahi maxaad jeceshahay inaad soomaalida ku nool magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda in aad u qabatid aad baa maasanta walaal run ahaantii Soomaalidu waa sax Soomaalidu maaragtay qayb ayaan ka hay Soomaali baan ahay haddana saastay tahay wadan magaaladan ayaa la doortay magaaladan ayaa shaqada iga sugaysa oo qof maaragtay Bergen laga soo doortay ayaan ahay haddana marka waxay noqonaysaa in cid kasta oo wadanka degan magaalada degan ayaa xaq ugu leh haddana saastay tahay Soomaalidu hadda waa dadkan isugu dhownahay wada shaqaynta ugu dhow in mari karto oo maaragtay luqad ahaan dhaqan ahaan intaas oo inay wada dhaxayaan marka waxaan rabaa insha Allah Soomaalidana inaan xiriir wanaagsan la yeesho aan mar kasta aan diyaar u ahaado inaan dhageysto baahiyahooda wada hadal oo dhex maro aan maaragtay ayaguna maaragtay aan kama maarmo ayaguna waxay u baahan yihiin qof ay maaragtay baahidooda u sheegtaan marka wada shaqayntaas waxaan isleeyahay haddaan iskaashano wax badan ayaan qaban karnaa annagoo maaragtay cidnana aan ku duuleynin ayaan xuquuqdeena raadsan karnaa marka guud ahaan anoo kamid ah Soomaalida laakiin u ah hoggaan in aan horkaco meelaha maaragtay baahiyadooda laga dabooli karana aan maaragtay uga hor sahan u ahaado marka waan u baahanahay anna waan u baahanahay ayaguna u baahan yihiin annagoo dadkii oo dhan ay noo sameeyeen ayaan haddana si gaar ah baahiya gaarka ah sanadihii dambe Soomaalida ayaa saameyntooda laga dareemayay wadamada ay dib u dejinta ka heleen oo ay dalka Norway ka mid tahay labadan xildhibaan ayaa noqdeen iftiin iyo rajo la sugayay taasoo ka soo dhex bidhaantay Soomaalida reer Bergen bog cusubna u furtay bila Maxamed Cabdi warbaahinta wacdaraha nolosha Bergen Norway